السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وحاواي قطر إيمان سيدة أنيقة وحانا هاي قبر كمية بارلمان قبلات كجارس ميشان معارة ماد إنا كسو جيديو بارمير ودحين وويل الحلبان جارس وبارلمان قبلات كجارس كمية والدقبة فافي كسو جيدان أرمي كدواجين يعني أنيقة كدواجين معارة أنا ميشان كشيغو أنا كشاعي wixii dan ugu jirto dadweynaha khaasatan degmada Faafi wiilashaas oo xildhibaano ah oo reer Gaaris oo baarlamaanka isla joogno waxaan u maleynaa arrimaha idaraad ka dhawaajiyeen baahida ay sheegteen ay leeyihiin ummadda waxba looma qabanin waxyaalaha ay sheegaan ay leeyihiin Faafi deegaan ahaan waxba lagama qabanin arrinta ayada arrin foolxumeyn ay tahay waxbana aan ka jirin been abuur ay tahay yaan u sheegay dadweynaha waayo baarlamaanka markaan joogno shaqadeena maxaa waay waa legislation and oversight legislation waxaa waay waa inaad sharci meesha keentaan oo sharciga wixii jiro marisaan wixii kalena waxaa waay inaad dawladda aad ilaalisaan oo aad ogaato xog baaritaan wuxuu ku samayso hadduu wax maan jirin oo wax uu jiro ama xumaan kala jirto ama shaqo ay ka socon degmada inay mar ramiiska soo saaraan bay ilaa hadda sanad saddexaad marayna midda kale waxay loo baahnaa baahidii marka adiga xildhibaanto lagu soo doorto baahidii wadankaada mise gobolkaada mise wardkaada mise constituency-gaada haddaad MPda ka sorto waxaa loo baahan yahay inaad baarlamaanka keento on the floor of the house in arrintaada soo taybolgareyso oo baarlamaanka la soo dhigo oo aad ka hadasho kabta ayada ka cabato baarlamaanka garab ku noqdaan sidaa wax lagu meelmariyo kadib waxay aadi wasiir dawladda waxay qabtaa intaasoo jago oo shaqo oo xafiisyo oo maamul oo kala socdo nidaam baa jira marka shaqadaada waxaa la rabaa sida ay ku baxdo baarlamaanka laga meelmariyo oo baarlamaanka ogaado sharci ay ku baxdo qoraalkaada baahida deegaanka sida ay ku baxdo yaa la rabaa wixii baarlamaanka ka baxo wax dawladda inkiri karto mise ay ma arday diidi karto sabab ku xumay dhihisan ma aha haday jirtana waa la ogaan la anaga kamid deegaanka Faafi aan waan ka imid marka ay saasto aan qatra ahaan deegaanka Faafi aan ka imaad aan burra waan ku dhashay naaniga meel dhiyaan ku akhristay deegaanka Faafi aan ka imaada marka ma dhici karto in adiga kaliya inta iska soo boodo ama subax hada dawladda aan cambaaraynayaa oo mise ka fanaan wax ka sheegay degmadii Faafi oo dhan baa qatar shanta wiil oo walaalahay oo baarlamaanka soo joogno waan xishmeynaa waan sharafnaa waa walaalahay xishmad weyn naga dhaxaysa laakiin been abuur bay dadka ka dhaadicinahay degmada Faafi ma baahno degmada Faafi shaqo la'aan ma haysato degmada Faafi shaqo badan laga qabtay suurtagalna ma noqonayso inaad meel inta iska firisto fikradaada wax ka maagto oo gabana ku cambaarayso maxaa keentay adiga hadii lagu soo doorto 2 sano iyo sanad saddexaad ba hadda noo yaa ma dhaxdii ku jirnaa maxaa kuwa kale fahmaanta aad wax sheegto maanta waxa baahida hadda ku qabatay oo 2 sano aad soo sheegin deegaankaada waxba laga soo qaban way afka yaa ku hay maxaa kugu dhacay yaa ku hayst nina kuma haysan kuwa barkood meesha waxay ka hayeen ninkan laga soo doorto aan juqur wuxuu ka ahaa majoor lida baarlamaanka ninkan xukumay baa walaalkay macaan waa ishbee asaga nin xukumay anaga sax ka bariya isaan dabsxin ninkan ku doofeelayna way maxaa ku dhacay sanad saddex dhaxtiisa gal mar uu asaga soo cabto uu soo xar waxa anaga aan ogeyn uu meesha baarlamaanka keen bas inta aan laga mar bas baayadiisa inta aan laga maqlin waxa uu sheeganay maxaa washima burra oo qolad sida Xasan Cabdullaahi burra laga soo doortay baarlamaanka budgetka dhan 2 sano asaa gacanta noogu hay he was the chair of budget ninkan wax ka sugayno maamulay inta soo markaa waxaan qabta budget ila marnay nadahay buu ah soo way anaga wax badan aan ognahay na wax sheegno mar haday raana wax sheegno waa shay karna 2 sano la soo dhaafay Faafi aan budget wixii ugu jira aniga waan og saasan aan dhahona mar diyaar min marka hadii adiga shakhsiyan adii ahaan wax kugu adkaado ama adiga wax rabto waxaad iska hergeli way inaad loo cambaaraydo dadweynaha been loo sheego kuma jirto ولا شيء وحن باقي أرنتا إيده وتعيبسني وأرن قلته بس أنا يسوق بصور تجلس وقفنا أنا عيب من غرس عم برس من غرس وايو حتى فافي قبل هم بيعباده فافي بدو حكس حتى شغله وهذا يفكت كومبليشن وايد معاه سب كاونت هيركوتا زال دسه شغله يا دسه من شغله قفنا دسه بس التركي بعمل نوعه أنت عيله بيو لقطه أنت نوعه درا قدام بزهرة جبس على الدرا بيا durra inta soo weerar laga qodo inta soo lulay baa la dur maxaa been loo sheegay dadka wax looga dhaadhicin maxaa deegaanka war been looga dhaadhicin loo kicin way hal nin intuu isu soo bixiyay meesha baarlamaanka ka dhawaajiyay deegaankayga baahan oo sheegtay bijir anaga baarlamaanka asla joogno isku shaqaanahay hadda aniga nominated yahay intuu asaga elected yahay once baarlamaanka ay maana nala bala taariyo isku shaqo isku darajo isku nidaam
wax uu mid kala dheeriyo ma jirto ilaa anaga nidaam iyo procedure iyo constitution baan baarlamaanka ku imaan ana kala cid kaasata ma laakiin inaad been la sheego been lagu abuurto dadweynaha been loo sheego raali ka manihin faafiyaan ka imaade dadka been loo sheego hashi degmada hadda lagu waxaan dhahay shaqo culus ka socota waa faafi marka waxaan doonayaa inta shaqo ka socoto dhicisa naftarka inta biyo la durum gar geeli waa iskaaga cabiya trafs biyo ku cabaa dadka intay biyo ka dhirgeen meel kasta looga dur yaa had waxaan ku dhaataa maan ceel cagaar ma arkaya ceelka la sheegi jiray ilaa raama maan ma jiro ceel ba dadka cagaartaa la jiray maan wixii ma jiro waa biyo wax laga dhigay intaasoo waxaa la dhisay headquarters intaasoo xafiisyo dhiyo baa la dhisay wax kale iska badaf shaqo kale hataa ha ku mashquul wixii shaqo qabasho kale ha ku mashquul soddonka ward laga soo doortay wiilasha baarlamaanka gobolka soddonkooda kulli albrow wuxuu ka qabtay ICT center salons lacagta iyaga la wada siiyo jaabka gashaday ayaga yaa la wada siiyo marka ama ha cuna ama dadkiisa ku ceshado asaga cishbadiisa jirtaa ma marka ICT ga lagu dhibo dad barkood ay kala fiicnaan dad baan tuduqa isku qabtay disiye dad baa contract kale u dhibay ninba nidaam buu siiyay ninba sidoo dadkiisa ku qancin kari marka anaga qorta waan joogna waligaa maxamaana ka hadlin maana maqlin ayaga waan isdabayaa jirin wax baa noola qoon bay ku hayeen waxay ka islaan waan u marin jirin maana maqlin shayga samaan ICT word ka soo noqdo ma jirto taati words kulli waa laga implement shaqada waa la buu marka wax kale iska wadaaf hashaas kali hatta fiir kulli biyaha had laga qabanayo saaqa oo la geeyo madoogash loo wado tay ka imaanay la shaqo ma nasiinaysa si China wax noo dhisay xaruf been loo sheeg dad runta sheeg qalbiga ka boolay iyo banaanay buu dhaxay sangaaylu inta projects kali hat maan ka qabta last year kali cadad ma laho waa isugnay marka in dadweynaha been loo sheego oo lagu been abuurto ama hadii adiga shakhsigan walaalayaal interestkiin ay idin wado dadweynaha runta u sheeg hadii dadkiina waxba la rabin idinkina wax isla rabtiin then that one is another different story laakiin dadweynaha ay lagu been abuuran ani waxaan u baaqlaa wiilashaas ayaga walaalayaashay waan xishbeen waan sharfa inay soo gaabsadaan way dhumeena jidka habeen laga dama daraar baa la helaa baa ay soo gaabsadaan wadada ku soo noqdaan tan kale waxaan u baaqaa qoos bay ka dhashay naftarkooda haddii arrintan ay maartay gaabsan waayaan mise ay sii fadeexaan ay wadaan kolley calbino ceeb ma noqonayso waa la soo doortay sida ayaga loo soo doortaa loo soo doortay gafana naftirkii waxaan dhihi lahaa mar dambe haddii arrintan ay ka noqonay ka raali gelin waayaan cid aad la hadasho jirin cid aad la tashato jirin wardka ku noqo wardka anaga waan ka imaanay naani baan ka imaadani MCA naaniga lama hadlay dib dambe daraad biyaa loo suray dib loolama hadlay albilo wardka ha tago deegaanka duqeydaas ku qabto bilcaan maamooy dhalinyarada dadka u baahan maanta wax qabasho uga kuwas dadka hadee qandaraasto oo qandaraas loo dagaalo qandaraastan waa lagu dagaalayo deegaanka ha siiyo albilo deegaanka ha siiyo maamooyinkii baa baahan meeshaas in lagu joojiyo ayagana arrinta ka soo noqdaan ay sabeen ka xiraan yaan doonayna walaalimaan wax wala wadna baarlamaanka intaas oo xisbiyaan kuna intaas oo qoosaan ku nahay ma fiirino interest aan waxa way hal ruuxan nahay hal shaqaano dhaxaysa konton ruuxan nahay aan wala shaqaysan marka inay qaybiyaan oo guri nagu qaybiyaan haday doonaan walaalayaal waa ceebowdana marada idin ka dhactay arrinta mar dambe ku noqonin aniga waa Qaasim Dhaqane Xasan MCA Saqa waxaan rabaa horta inaan sheego intii walaashii ay sheegto maandul mari waayo waxa weeye county government Governor Ali Ibnu runta markaan sheegayno ward maanta baahan oo la dhigi wax looma qabanin khaasatan nolosha biyay ku jirta biya ward maanta aan laga cabaynin Garissa County 30 wards ana qaas aan ma ka saay حايل أنا وحنا يحل بانك ساقع مركان هاي ماشى برلمانك أنجونو وحنا هي كرسي شرعي مركان في ني صدق كوود بيال لعبايا ماشي وحكجرا سومالي وحي ترى الله إنك يا ورما ماشي صار كتمرها يا ماشي الله بحر له اسفه ملايين مركان وحنا شيء أمضى جارس شنطة حلبان ودرت صوبان دكتي إذا عدا قعن بارين سجابنا إلى هان دان شخصيات إنه يهلين الأمضي صدرتين يهلين فيري شنطة ماشى برلمانك وحينوها ين جودي كوميتي لده نكستا شيمان بوها MCA فافي هو شيمان MCA وهو جراجيلا وحوها كوميتي تشا أصلا MCA دانير وحاوي كوميتي تشا
marka intooda ku jaminahayn waxaan la yaabana baarlamaanka miiska sax lagu kala qaataa press inta aado ana maanta wax ka soo waayeen press ba iska fiisan governor ambarin governor afkaalmeeko adiga waxa ka imaata award level governor wuxuu ka imaada the whole county of Garissa marka walaalay waxaan fari meel baad ku mashquulsan tihiin meel baad durbaani laga xire haddii kale aayarka guuxan ay wadiin joojiya ummadaha kicinina waxba kama jiro waxaan ay sheegaysiin caloosha u shaqaystayaal baad noqoteen waan iska saynaa baarlamaanka isla joognaa marka runtii ummadda Gaaris waxaan u sheegi waa bariya sacba lagu maqan karaa waa maya marka gabanaha shaqada uu hayo nin walba indhiisu ku arkaa bini'aadan ilaahay baa deeqi karaa hal qof ma deeqi karo marka wixii noo imaada county ahaan caadi waa noola beereeyaa wood kala maanta la siin kaasaa beri la siin laakiin faafi ahaan egaan dhaho 2 sano aan soo dhaafne dowladda county Garissa waxay ku mashquulsaneed faafi waxaan nasiib darre maanta faafi MCS inay intay fariistaan meel ay dhahaan waan baahannahay waxaa la maqan olol shiilo ilaahay aan ka cabsano beenta hala joojiyo beenta meel ay ka bixin male qofkii been ku adeegana waa dhib waxaan xasuustaa MCA Jarajila wuxuu sheegay dhaar inuu dhahay macallimiintu ay soo tagtay lacag maxaa la soo gashay 100 milyan excuse me waxaa jirtay governor inuu nagu dhigay fadhi security ku saabsan Almond oo kudi stakeholder isku yeeri asaga taa wuu joogay marka waxaa la soo go'aansaday in security anaga cid aan ka bilaawno oo wiilasheen askarta ka soo baxeen la habeeyo hub la siiyo gawaari la siiyo alla ilaahay saas mushaar loogu qoro ay nabadgelyadii waddanka oo dhan ay keenaan markii nabadgelyo la helo ayuu macallin imaani mahado adan ku sheegay MCA daatay where the security is when you can have the teachers presence my friend what you are trying to do is misleading the whole county and it's never good you have a majority of this county in the county assembly level Yusuf the same thing applies to you your individual interest cannot be submerged by the community interest with those few remarks waxaan cod kale u dirayaa governor the words are open to you all these MCAs are confused and they are brothers one day one time they will come and regret why they did that ugu dambaysi waxa way eeganayto waxaan u tacsiyeenaa reefaafi MCAs walaala shiino ummadii ni soo doorate meeshay ni soo dirtay ma ogi meel kale ku mashquulshan ummadda ha dhuminina iniga wareersan aayabku cagaha dhulka saara wassalaamu calaykum